shirkan golaha amniga qaranka ee uu shirgudoominaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasiirada amniga dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo taliyayaasha ciidamada dalka arrimaha looga hadlayo shirkan ayaa ah dhismaha ciidamada iyo la dagaalanka al-shabaab waana shirkii labaad oo golaha amniga qaranku ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho uu la shirgudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda shirkan waa shirkii labaad ee golaha ammaanka qaranka oo madaxweynuhu shirgudoomiyo kulankan wuxuu ahaa kulan muhiimad gaar ah u leh dawladda federaalka Soomaaliya oo loogu diyaar garoobayay kulanka guud ee 4 bisha December ka dhacay magaalada Muqdisho oo beesha caalamka iyo dawladda federaalkaba uga hadlayaan sidii Soomaaliya loo maalgelin lahaa nabad sugidda iyo amnigeeda looga hadli lahaa ciidamada AMISOM sidii ciidamada xoogga dalka ay u bedeli lahaayeen kulanka muhiimka ah waxaa looga dooday arrimo badan waxa la isku raacay in si wada jir ah dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalkaba ula dagaalamaan kooxaha argagixisada caadaystay inay shacabka bartilmaameystaan meelna looga soo wada jeesto sidaas daraaddeed goluhu waxa ay ansixiyeen qorshaha difaaca qaranka oo wasaaradda gaashaandhigga soo diyaarisay dawlad goboleedyada iyo dhammaan madaxda qarankana la isku wada raacay laguna ansixiyey shirkan isaga sidoo kale shirkan isagana waxaa aad looga hadlay habeynta qaybaha xoogga dalka sidii muxuu ahaa secretization waxa la dhaho loo kala qaybin lahaa iyadana waa la isku raacay waa la wada ansixiyey waxa kaloo iyadana la ansixiyey guddiga isku dhafka ciidanka qaranka oo howlaha muhiimka qabanaya oo ka kooban dhammaan dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayagana goobta ayaa lagu ansixiyey sidoo kale wuxuu ra'iisul wasaaruhu warbixin ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay shirka soo socda December shirkan isaga wuxuu dhacayaa oo iyadoo madaxweynuhu uu shir gudoominayo shirkii kale madasha qaranka ayaa qayb ka mid ah ayuu ahaa kan oo si gaar ah arrimaha amniga looga hadlayay kii kale shirkii guud madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda qarankana dhawaan ayaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed inta uu socday shirkan wajiyada mas'uuliyiinta kala duwan ee ka qayb galaya shirkan golaha amniga qaranka ayaa laga dheehan karay muhiimadda arrimaha amniga xilligan ay u leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliya Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka Villa Soomaaliya